madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo awood ciidan ku tagaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoona durba ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ay gaareen ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan koofiya casta madaxtooyada Soomaaliya oo hordhac u ah safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee awoodda ciidan uu kula tagayo magaalada Kismaayo dhinaca kale waxa la soo warinayaa in arinta safarka madaxweyne Xasan Sheekh uusan raali ka ahayn hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo maalintii shalay dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ujeedka madaxweyne Xasan Sheekh maxuu yahay maadaama Axmed Madoobe oo isbahaysi cusub la dhistay siyaasiyiinta mucaaradka oo lagu daray hogaamiyaha maamulka وبوتلان سعيد عبد الله الدني waxaan kula wadaagayaa qorshe halis ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay degeen sidoo kale Axmed Madoobe oo dhawaan la soo afjarayo si lamida waxaan xog idinkaga hayaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya xilligan awood ciidan doonaysa inay ku soo furato sanatarkii ku xirnaa magaalada Kismaayo in ka badan sanad oo lagu magacaabo sanatar Ilyas Bedel Gaboose oo dawladda Soomaaliya markii Axmed Madoobe uu isku caano shubay ay ku amartay inuu isku madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ee saxda laakiin Axmed Madoobe oo ku afduubtay guri ku yaala magaalada Kismaayo oo muddo sanad ka badan xabsi guri ku ah hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagayaa daawade laakiin sidee u aragtaa in dawladdu waa madaxweyne Xasan Sheekh awood ciidan ku tago Kismaayo iyadoo san Axmed Madoobe oo san arintaasi raali ka ahayn maxaa ka dhalan kara ma laga yaabaa in mar kale food la isdaro oo dhinacyadu ay wada dagaalamaan aragtidaada qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb muuqaalkan si share garay haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dhaho aragtidaada xur ayaad u tahay mar kale in la wadaag aan ku bilowne xilligan xog aan helnay waxay tilmaamaysaa in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan ciidamada koofiya casta madaxtooyada Soomaaliya ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo ciidamadan waxay hordhac u yihiin safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tagayo magaalada Kismaayo markii ay halkaas tagaan qorshe halis ay damacsan yihiin waxaana qayb ka ah inay magaalada awood ciidan kula wareegaan marka ugu horeysa oo Axmed Madoobe iyo kooxdiisa xabsi guri ay ka dhigaan sida aan xogta ku helnay madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu go'aan ku qaatay in Axmed Madoobe si degdeg ah loo soo afjaro maadaama siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Siciid Cabdullaahi Dani oo hogaamiye ka ah maamul goboleedka waa Puntland oo isbahaysi cusub la dhistay oo loogu magac daray golaha mustaqbalka Soomaaliya haddaba madaxweyne Xasan Sheekh oo arintaasi ka carooday ayaa la sheegay inuu safarkiisa uu ku tagayo Kismaayo oo ka dhaga adeega saaxiibadiisa inuu ka istaago maadaama Axmed Madoobe la sheegay inuu san raali ka ahayn laakiin madaxweynaha ayaa ku adkeystay waxa uu sheegay sida aan xogta ku helnay inay Kismaayo tahay magaalo Soomaaliyeed oo aan cidna laga xigin qof kastana uu tagi karo maadaama madaxweynuhu uu yahay madaxweyne Soomaaliyeed Axmed Madoobe waxa lagu wargeliyay in magaalada ay soo galayaan ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada guutada madaxtooyada Soomaaliya oo ilaala u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh uu halkaas tago Axmed Madoobe in la kulmo ayaa la rabaa laakiin hadii uu diido waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ay doonayaan inay Axmed Madoobe kala xaaltamaan maadaama wixii kale oo idil iska dhamaadeen sidoo kalena uu Axmed Madoobe si toos ah mucaaradka ugu biiray inay ka soo basriyaan ama ay ka soo furaan sanatar Ilyas Bedel Gaboose oo muddo ku dhow hal sano ku xiran magaalada Kismaayo guri halkaas ku yaalna xabsi guri ku ah haddaba Axmed Madoobe hadii uu diido maxay sameeyaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo ciidamada uu wato waxa la sheegay in madaxweynuhu iyo kooxdiisu ay qorsheynayaan in Axmed Madoobe Kismaayo loogu tago sidoo kalena qayb kamid ah magaaladii lala wareego gaar ahaan garoonka iyo sidoo kale meelaha kale ee muhiimka ah kadibna madaxtooyadu ay ciidamadii ugu badnaa la soo degto Axmed Madoobena sidaas lagu soo afjaro hase yeeshee lama oga siday arintaasi suurtagalka ku noqon karto maadaama la sheegay in ninka lagu magacaabo Axmed Madoobe oo san arintaasi raali ka ahayn maxay ka dhigan tahay daawada in madaxweyne Xasan Sheekh oo durba go'aan lama filaan qaato sidoo kalena uu iska xaadiriyo magaalada Kismaayo iyadoona la og yahay in madaxweyne Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe ay xilligan boorsooyinkooda kala qaateen oo mucaaradka uu si toos ah ugu biiray hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe maxaysa ka dhigan tahay safarkan dhinaca kale waxa la soo warinayaa in saraakiil kale oo ajaanib oo sirdoona oo ka kala socda dalalka Itoobiya iyo Kenya ay ku soo qulqulayaan magaalada Kismaayo si ay u dhaxdhaxaadiyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ee aan dawladda Soomaaliya aqoonsiga ka haysan haddaba ujeedku waa dhowr ajando sida aan idin soo sheegay waxaana kamid ah in ninkaasi la soo deeyo maadaama dawladdu ay dhiiqadaas lugaha u gelisay oo ay ku tiri waxaad sheegataa madaxweyne
lamida Axmed Madoobe xilliga Axmed Madoobe oo isku caano shubay tan iyo markaasna in Axmed Madoobe ayuu jeel ugu jiraa ninkan oo guri halkaas ku yaala ayuu xabsi guri ku yahay maxay ka dhigan tahay daawad aragtidaada ila wadaag markana waxaad ila daawataa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo saaki ka hadlay 54 wado in ka badan oo laga qaaday dhagxaantii ku go'need shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ay dhibaato ku qabeen muxuu ka yiri qoryaha dhashiika ah ay wataan mucaaradka iyo sidoo kale dawladda saraakiisha ka tirsan maxaa amar lagu siiyay ila daawo aragtidaadana ila wadaag markii aad dhamaysato muuqaalka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan xasuusanahay markaan nimid mushkiladu shabaab kaliya maahay saddex mushkilo oo aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u xanuun badan ayaa magaalada ka jirtay oo saddexduba amniga magaalada ay burburiyeen mid wuxuu ahaa qolo yar yar oo soo baxday oo musiibo ah oo la yiraahdo ciyaal weerarliga oo magaalada dirtay oo ololiyay oo draagii iyo qashinkii iyo tooriidii iyo qofka waxay yaani waxa waaye la dhaqaaq waayay oo guriga laga soo bixi waayay ayay way taagan yihiin animaan midna wuxuu ahaa magaalada oo hubkii uu tasaqay cid waliba iska wadato oo aan la garanaynin yaa askariya yaan askari ahayn oo deedna maalin walba wiil bajaajlaya la dilay ku yar baa la dilay mid kala la tuuray waa la dilay yaa dilaya askari baa dilay wiil bajaaj inta la soo raaco waraa qaad xagee ku geeya xaga inuu lacagtu si mayna qaraac hal mar gas waa la dilay dhibaatada labaad ee ka jirta dalkan magaaladan gaar ahaan caasimadda ayay oo aad ka u dhib badnayd runtii dhibaatada saddexaad khawaarijta saddexdaas dhibaato oo aad iyo aad u xanuun badan ayay markaasa maalintii u qiyaastii waxa dhiman jirtay magaaladan 100 qof marka qaarkood oo aan aad iyo aad u xanuun badan marka la tiriyo aad la yaabayso tirada booliisku haday reportka ku keenaan aad ka naxayso waxaa kaloo jiray oo dhibaato ahayd hay-adaha amniga oo aan mid la shaqaynay jirin kani booliiska nabad sugid ma ogola nabad sugidda booliiska ma ogola isku shaqo ma aha waxa weeye ciidan kale iska badhaaf military uu iska dareeraya ciidamada qabataba identification ba male iyagu cid taqaano male way iska dareerayaan qoryihiina waa wataan gobolka oo asna aan shaqada ku jirin oo gudoomiyaasha gobolku ay wareereen maxaa jira taliyaha booliisku waxba ka dhageysan maayo islama shaqaynayaan taliyaha saldhigu ma wada shaqeeyaan shaqo iskuma leh hab ay wada shaqeeyaanna ma leh dhibaato marka waxay ahayd runtii aad iyo aad weyn ayadana marka taana halkanaan isugu nimid waxa way 2023 bishii saddexaad baheedaan malaynayaa halkan inta isugu nimid ayaan soo afjarnay arrintaas meeshaan ka soo bilownay bay ahayd magaaladan amnigeeda in laga soxo inaan dhahaan amar bixinno taliyaha saldhigga booliiska oo taliyaha gudoomiyaha ku amra waa inaad ka amar qaadataa guddiga amniga asagaa madax u ah waa inaad la shaqaysaa kadibna waxaa aanu aragnay in loo baahan yahay in ciidankana lagu xoojiyo meeshii ciidamaha soo tababarnay waa la keenay police military aan ka dhignay waan soo howlgelin markay ciidankaasi yani muddo kooban shaqaynayeen ee ay hay-adihii amnigu hal mar isla jaan qaadeen ee si toosa shaqadii loo wada bilaabay ee gobolkiina shaqadii la bilaabay ee la wada dhaqaaqay muddo kooban kaaran baanu ku caweynay habeenkii hoosan kadibna heliwaa baan tegay anugu oo yaaqshid baan tegey oo kaxdaan tegey oo waxaa waaye magaaladii o dhan baan su soo maran
meeshaasay marka nafisku ay ka soo baxeen waxaa bilowday marka in la yiraahdo intaan waa ku guuleysanay hay'adihii amnigu oo aan uga mahadcelinay runtii hay'adaha amniga sida u dadaalayeen oo aan yani dadaal kala go' lahayn ka shaqeynay hay'adda nabadgelyada booliiska militariga iyo dhammaan hay'adaha runtii qaybaha kala duwan hay'aduhu qorshayaal bay keeneen magaaladii bay kala qaybiyeen zone isay u bedeleen strategy bay keeneen zone 1 zone 2 zone 3 ayagoo intaas meel walba marka la gaaro xaafadaas amnigeedii waa la sugay kuma arkaysid mar dambe marka xaafadaas ayadoo qof lagu dilayo assassination la sameeyo waxaas waa dhamaatay haddana say u socdeen tartiibtaasi ku socotay markii dambana iyo hab strategy ah oo aad iyo aad runtii u wanaagsan intaa kumaanaan daynay dee say u shaqeeyaan waxaan u baahanay inaan xeerar ku kabno sida la sheegaya marka xeerarkaan soo saarnay ee xeerka xakamaynta hubka kii xasilinta kulli waxaasoo dhani waxay ahayd in ay ileen hay-aduhu iskama shaqayn karaan waa dowladda inay sharci ku shaqeeyaan taasna marka waxay ahayd qaybtii aan ku kabnay oo aan lagu shaqeeyay maanta marka amniga caasimaddu mar horaa la sugay maanta waxaynu u joognaa raadadkii cabsidaynu qaadnay maanta magaalada raadadkii cabsida inagu reebtay ee muuqday ee daahirka ahaa ee muujinayay inay meesha cabsi ka jirto ee cabsida ee raadadkii cabsida tii weeye waxaynu ka zuulinay maanta oo aynoo bilaabatay inaynu ka zuulinno caasimadda taasaynu ka zuulinay daahirka marka waynu u jeednaaye haddii ay wax ku sii dhiman yihiin waxaan rajaynayaa quluubtana in laga siibo oo laga nadiifiyo cabsida dadka soomaaliyeed ee reer muqdisho way rafaadeen dhibaataygii aan dadka kale soo gaadhin meelo badan oo ka mid a ayaa soo gaartay ee soomaaliyeed caasimaddii bay ahayd soomaaliya cidda rabta inay burburiso oo dhan caasimadda inay burburiso hadday rabto inay mushkilado abuurto caasimadda inay mushkilado ka abuurto sidaa darteed dadka soomaaliyeed ee caasimadda degani waxay subject u ahaayeen target maalin walba inay iyagu baaba'aan boqol ay u dhintaan dowladnimada soomaaliya price bay u bixiyeen dadnimada iyo dalnimada soomaaliya price kaaray u bixiyeen taasi waxay ku abuurtay markii ganacsatooda la laayay oo culimadii la laayay oo dhallinyaradii la waayay oo hablihii la laayay oo qof wax oo kii masaajid ka soo baxa la dilay oo cid walba la dilay waxay ku abuurtay dadka cabsi ay gaartay inuu yiraahdo waan ogahay ninka shabaabka ee waxa sameeyay laakiin ma sheegi karo haddaan sheego aan u dilaya haddii maxkamadda la geeyo haddii xabsiga la geeyo waa la igu soo daynaa kolleyba wuu soo baxaya haddana maalin dambe aniga i dilaya iskama imaan waxaan soo xalinay inaan kaasi soo baxsanin xabsiga markuu tago waxaan saxnay nidaamka garsoorka waxaan gaarnay in dadkeennu ku kalsoonaada life maxaan uga dhignay maxkamadaha markay socdaan life maxaan uga dhignay lacag badan oo aad u badanaa gasha maxaasaa loo sameeyey waxaan rabnaa dadkeenni bal kalsoonidii inay soo noqotay arkaan sida wax u dhacayaan iyo absodiska qaabka ay wax u dhacayaan inay arkaan sida dadku isu difaacayaan sida loo doodaayo sida shuruucda loo raacayo sida garsoorayaashu ay wax xukumayaan habka wax loo marayo inay arkaanaan rabnaa taasi waxay keentay inay dadkii kalsooni helaan marka kalsooni inay helaan ayay keentay amnigu marka waa manduumo dhan oo isku xiran oo shacab leh oo dowladda qaybaheeda kala duwan oo dhan leh oo isu tegay waaye marka taasaa keentay maanta waxaan rajaynayaa marka cabsidaasi inay quluubtana ka baxday madaahirteedii iyo raadadkeediina waa innagaa hadda bilownay inaan qaadno insha allah face one marka inay dhammaystiraan muddo bil ah ayaan faraynaa hay-adaha amniga iyo gobolka badan
waxaa fududaanaysa sida la sheegay socodkii ayaa fududaanaya dadka waxaa si weyn wax looga tarayaa jaamkii jiray iyo culayskii magaalada ka jiray ayay arrintan wax ka taraysaa waxay nashaad gelinaysaa dhaqaalaha dalka gaar ahaan caasimadda ayaa ay nashaad iyo nolol gelinaysaa waxay daliil u tahay arrintani daliil cad oo markhaati bandoona u tahay horumarka laga sameeyey amniga intuu leeyahay waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha ama ciidamada qalabka sida ee naftooda u huray inay caasimadda muqdisho maanta sidan u ekaato ama ay sidan isu beddesho ciidamada hadda aan sheegayo macluuman booliis ka hadlaynin wixii ku dhacay ama dhib ka soo gaadhay nabad sugidda ka hadlaynin wixii dhib ka soo dhacay keliya tusaale haddaan u soo qaato ciidamada xasilinta la yidhaahdo ee biliis militara muddo kooban markay shaqaynayeen baan hiil weyn ugu tegey waa muddo aad u kooban waxaan u tegey 51 sawir oo derbiga lagu dhajiyey oo wiilal Soomaaliyeed oo dhammaantood ku geeriyooday ayadoo shaqadan ku jira waa muddo kooban aad u kooban 51 sarkaal 51 oo qaarkood saraakiil yihiin ayaa sawirradooda meesha soo dhigay waxaan rabaa markaa inaad ogaataan amnigan bilaash kuma iman bilaash kuma iman boqolaal wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa sidaas ugu shahiiday ayaga oo u taagan qarax lala beegsaday la mishimay dagaal galay ku dhintay ku geeriyooday magaaladan inay ma aha kuwa banaanka ka jihaadaya ma waa caasimadan amnigaani marka waa qaali wuxuu inagu yahay qaali wuxuu inagu soo galay qaalinimo inagu soo galay bilaash inaguma imaan bal haddii ayaga oo 6 bilood gaadhin 50 wiil ka dhimatay maanta maxaad malaynaysaa marka horta taas waa sidaas ha la ogaado sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa runtii maamulka gobolka Banaadir oo si weyn amniga isaga xil saaray gacan weyn ka geystay oo siiyay ciidamada amniga sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacabka caasimadda oo fahmay ahmiyadda amnigu noloshooda u leeyahay kuna faraadayay lana shaqeeyay hay'adaha kala duwan ee amniga ka shaqeeya waxaan hoosta ka xariiqayaa faan sheegay in amnigu uusan bilaash ku imanin si culus iyo culays aad u badan ayuu ku yimid naf badan ayaa loo huray dawladduna waxay ku bixisay malaayiin dollar ay ku bixisay oo lacag bilaash kuma uusan imaan waxaan leeyahay walaalahayga sharafta leh shacabka reer Muqdisho odayaasha dhaqanka culimada gabdhaheena sharafta leh dhallinyaradeenna aqoon-yahanadeenna siyaasiyiinteenna qaybaheena kala duwan reer Muqdisho waxaan leeyahay amnigaa maanta sidaa u ekaaday waa ammaano iyo mas-uuliyad qoortiina ku xidhan ilaahay hortiis waxaan rabaa inaan sheego inaysan bilaash ku imaan